magacaaga maxaa la dhahaa aniga Seynab Yuusuf Cali ka war maanta maxaad dareemaysaa wadigan kulli maanta farxad weyn baan dareemayaa farxad aad igu farabaxdo sanad guuradii 20aad maanta anoo soo gaaray oo nimcada ku jirna ilaahay ha noo barakeeyo ilaahay ha noo kadbo barwaaqo iyo baraare reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan miyi magaalada dal iyo dibadba farxad iyo barwaaqo ku ciida وأنت ما أنت ما أنت محد رميسة شخصيا هان ما أنت محد رميسة أنت محد رمي يا دفر حد وأوسد ديار قروبي أنت بالدق بكشرة وأنت واقع فرحان أولي عيد وناكسر عيد وناكسر سير Soomaaliland meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba miyi magaalo farxad ku ciida magacayga wala lagu ciid Seynab Yuusuf Cali بسم الله الرحمن الرحيم وحمان توي بيش تطبيق طبعا تهاي دوسي تبال دقيقة سنة بورادة لباتنادي كسوري كيستي تلوكي مي كدي مركي لغا دواقي مدحبنانيدا جمهورية Soomaaliland magaalada Burcukni 999 taasoo dadka magaalada Hargeysa ku nool ay duwaad gaadiidku ay ku shaqo leeyihiin dhamaantood astaanta iyo calaamada Soomaaliland munaasabada 8 sanad guurada 20aad ayaan hore loo aragsadan oo kale oo aad iyo aad dadku u jibeysan iyadoo xamaasad aad u ballaaran ay wataan بسم الله الرحمن الرحيم هذا المعلن ومواد Soomaaliland ودشay oo ku xardhan maanta calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay maalintii madaxbannaanida Soomaaliland aadan maanta dareenkaagu waa sidee maanta aad baan ugu faraxsanahay jawiga iyo bulshada reer Soomaaliland sida ay u xusayaan maalintooda qaran gaar ahaan adiga shakhsiyan marka aan ku diyo maxaad maanta dareemaysaa aad igu weyn sida muuqata waxaad xiran tahay calankii Soomaaliland koofiyad garan adiga iska jeebadaada ugu iibsay miya maya maya ugu iibsanahay وضع ما صنت أحد هذا مقعة محمد خليفة عبدي يكور ما تستمش كمجالات هي حالات زين كي قاعدين عبرو آد بنو فرح سنة قاعدين دتك Soomaaliland waxaanu taaganahay waa sanad guuradii 20aad ee asaaska jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May waxay nagu tahay maalin qaali ah sidii madaxweynuhu ka dhawaajiyay maalinta wuxuu yiri dareenkiinu mid dhawaaq sare leh aan noqdo oo ictiraaf lagu raadinayo waxaan leenahay ummadda Soomaaliland waa guul ictiraaf baan rabnaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم قار كترسن ganacsatada Soomaaliland oo iyaguna calamada ku xardhan jirkooda ku xardhay maalinta sanad guurada 20aad ka soo wareegtay madaxbannaanida Soomaaliland 1990 ayaanu mihradooda kula kulnay waa magaca aniga Khadar Maxamed Maxamuud Khadar ka war maanta dareenkaaga aad buu fiican maxaa inta ku dheer waxa weeye astaantii aad muujino on dadka tusno on leenahay dadka astaantan ku xidha waxa weeye kaliya tan waxa weeye waa ta kaliya ugu fiican astaanta la qaato ee dhamankaaga lagu dhajiyo marka waa dal jacayl waa dal jacayl dadkana aan u keenno anagaana u keenno dadka kana iibinayna qiimo jaban oo ka siinayni waa ma santahay waa magaca bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan Mustafa Maxamed meherada waa maxaa la aan dib ugu yar qaaliga meherada waxa la yiraahdaa happy price wax ku tala gagaga ka tagleed ka soo jeedka geed deeble ku taala waxaan ugu talagaleen ku midisay oo ku fikiray inaan tan u keeno maadaama marka hore dumarka ay marsan jireen xamuurada oo wajigooda damage ka sameyn jireen imika laakiin waan ka wareegnay waxaan u keenay inay calaamadan ku dhijistaan oo jigoogna waxba yeeleen una fiican intee laga yaqeentiro laga jiray waxoogaa kumanku mid baan keenay oo soo daawacay oo keenay marka waa la iibsaday dadkiina way barteen waxa weeye dadka waxa weeye xamuurada iyo wixii ka raadsan
magacaaga igu celi aniga khadar maxamed maxamuud baleeraa khadar maxamed axmed oo ganacsade happy price haysta ayaa farxadda uu kala qayb qaadanaya dadkiisa sanad guurada labaatanaad ee kasoo wareegtay 1990 markii lagu dhawaaqay madaxbannaanida Somaliland maanta madaxbannaanida sida lagu dabaaldegaya tan oo hore loo arag oo halkii markii hore calaamado iyo xamuurada lama jiray sida ganacsaduhu inoo sheegay waxa ay u sahlaysaa calaamadan dhabanka la suranaya oo ah calaamad dhabanka xabaga oo la iska gadhinayo midabada kalarada halis bari jiray aad baad maasan magacaawla bismillaahir rahmaanir rahiim waxa Mustafa Maxamed Xasan maanta ay u tahay maalin weyn oo qaali ah oo 18 May taas oo ah maalin weyn waxaan adduunka iyo caalamkaba aan ka rajaynayaa in dadweynaha iyo gaadiidka ayaa kuyuu ugu jira meelaha lagu sameeyo calaamada Jamhuuriyadda Somaliland taas oo ay ugu dabaaldegayaan maalinta munaasabadda 18 May ee sanad guuradii labaatanaad ee kasoo wareegtay madaxbannaanida Somaliland halkan waa meel lagu sameeyo calaamada iyo astaamaha qaranka oo ay dadku ka ganacsanayaan oo la dhaho asaf بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maharada happy price kula kulmay mujaahid maxamed sheekh oo kamid ahaa mujaahidiintii dalka u halgantay ee dibadda u taagtay nabadgelyada Somaliland waxa uu kamid ahaa ciidankii biliiska ee ugu horeeyay ee Somaliland laga aasaasay ee nabadgelyada horseeday waxa uu ahaa 40 askari ee ugu horeeyay ee biliiska ahaa ee 370 ugu horeeyay ee biliiska ee Somaliland lagu aasaasay waqtiyadii 1992 محمد أول دليل يراو كعب بالي قرن من السومالنا سود دبده وتاج لها محمد ما أنتم حكوا قادنا يا أو سديارنا يا سقون نافع ولا بدي سبروستا سقول بدي سبروستا إنه كقيب قاتو يرجعوا بالدبادة كحوس كستير تبون كمية سنة جبل اللباتنات محمد ما أنت كورن دريكا حندريميا إن أي صبح لي حقوق مدور إن أي صبح لي حقوق مدور هذني وحن قد عينيا شو هذا ذي أسوأ هالجنتي أسلم وحن أنهم بلينيا سلاكيش أسلم الديجود ينفتو ذا أخرى وحن أنهم بلينيا سلاكيشي أما ساقونيا الذي بلاوي يقولي سكتاجا كبلاوي 1981 كبلاوي لندن كذا وحن كلهم حنبلين يا هو يدي يو لما تذكر البراجها إزجرت تاجي أرجع كيسنا أما ساقون البرسي وحن حنبلين يا ددويني كل قناة ميجا السود وهي بشلة وحن حنبلين بلانو دريا دمان دولة وحن دريا الشعب وينها وحن دريا meel kasta oo ay ku nool yihiin waxa aan leeyahay isha muuqata oo aqoonsigii Soomaaliland maxay shakhsi ahaan maanta maxaad dareemaysaa daniyow kuma sheekeen karaba berri bay ugu fogaatayba eedinkii bay ugu fogaatay waad maashatay maxamed oo fikradiisa ka dhiibtay oo maanta bishka 17 isu diyaarinayay 18 inkasta isla milacaa uu soo jeediya oo saxan maayo محمد هذه هذا ما صنفه